federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir oo kamid ah wafdiga ka qayb galaya ciyaaraha Somali Week oo sanad walba uu qaban qaabiyo ururka Today marti kala duwan ayaa soo dhaweysay wasiirka iyadoo kulamo kale oo isxog wareysi ah markaasi loo qaban doono soo dhaweyntiisii waxay u dhacday sida tan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport u joognaa soo dhaweynta wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir oo sidoo kale ah ciyaaryahan wacdaro ka dhigay ciyaartoy caalami ah markii Muqdisho lagu soo dhaweynay dabcan wasiirku iyo wasaaraddiisa ay isku qalmaan marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyno magaalada Toronto. wasiirku wuxuu ka mid yahay wafdi ka qayb galaya ciyaaraha Somali Week ee sanad walba ururka Today uu qabto wuxuuna ka mid yahay madax ka kala timid wadamo kala duwan iyo waliba dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya markaasi had iyo jeer ka qayb gala ciyaaraha Somali Week Toronto ee ururka Today waxaan rabaa hadalka inaan soo koobno maadaama soo dhaweyn oo hadda ay tahay kulamo badan iyo soo dhaweyno ayaa xigi doona waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cabdi Aadan oo ka mid ah ciyaartoydii hore ee Soomaaliya ururka Todayna ka tirsan si uu kalimo kooban halkan oo soo dhaweyna u dhahdo Cabdi soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta waa kana halkaan isugu nimid waxa isugu nimidna wax kala ma aha inaan soo dhaweeyno wasiirkeennii ciyaaraha oo aan waqti badan sugeynay runtiina aan shaashada ka arki jirnay waagii hore maantana aan u heena live marka waxaan ku leeyahay Maxamed soo dhawow magaaladaadii waaye intaana qofoodna saakay iyadoo ay subax tahay maalin shaqo tahayna waxay u yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan marka waxaan ku leeyahay ku soo dhawow waan isla joognaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Thank you very much. Cabdi Aadan aad ayuu mahadsan yahay waxaan rabaa waxa jooga wasiir dadkii udubdhaxaad ku haa bulshada waaye kuwa badan wada arki doonta waxaan rabaa inaan markana u dhiibo Maam Shamsi Ibrahim Booliis oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada iyo ururka Today ee magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Canada si kalimad soo dhaweyn ay u dhahdo wasiirka Shamsi soo dhawow. ما شاء الله تبارك الله maanta waxaa sharaf noo ah oo mudnaan leh inaan ku soo dhaweyno magaalada Toronto wasiirkeena sportiga ninka wasiirku ee wasaaradda sportiga ee dawladda federaalka kulana welcome to Toronto kooxda Today ku soo dhawaaw ciyaaraha Somali Week wax badan waa saadaalina wasiirka ka horeeyay way noo yimaadeen adigana waxaan ku leenahay soo booqo welcome to Toronto adiga iyo xaaskaadaba waxa idin leenahay soo dhawaada Toronto waa maadsantiin. Shamsa Ibrahim Booliis aad ayuu mahadsan tahay wasiir Maxamed Cabdulqaadir waxaan leenahay mar kale ku soo dhawo magaalada Toronto iyo Soomaali si aad dabcan u jecel dawladnimada iyo waliba madaxdeena wadanka nooga imaanaya waxaan rabaa inaan odayaasheena iyo aqoon-yahanadeenna ayaa nala jooga inaan kalimad siiyo Saciid Fuuj oo kamid ah odayaasheena kadib waxaan siin doonaa oday mursal oo ah gudoomiyaha ururka Today laakiin waxaan ka hormarinayaa Saciid soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta halkan waxaan isugu nimid inaan soo dhaweyno wasiirka shaqaalaha iyo isboortiga Maxamed Cabdulqaadir Cali Xaashi waxaan leenahay wasiirka soo dhawow anigu waalid baan ahay adeernimo ku soo dhaweynaya adiga iyo xaaska waan soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo gaadhay oo magaalada Toronto aad timid insha Allah community-gaani waa ku soo dhaweynayaan annagoo dhanna waa ku soo dhaweyn doonaa waqti badanna waa isu heli doonaa haddii rabbi idin waxaan ku leenahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba adiga iyo marwadaadaba wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بروتوكولهان قدوميها نوصو حيري دونا على حريدا يان مركن ودي بياسي وسودوين تقريبا ونقض. هذا وما تنتهين هذا بانو فرحسنا هاي وسير محمد عبد القادر إنه ما أنت تورنتو نوجي ماذا وفرصة وين بينوتا هاي يسودوين تاني كسوق قريب جلدا وسير كوا وكسودوين لنا إلى هذا كيس sheeko iyo wada hadal dambe ina waa wada yeelan doonaa hadii la idmo marka soo dhawo wasiir. Alxareed aad ayuu u mahadsan yahay wasiir ururka Today iyo waxqabadkooda dabcan Muqdisho waad ku kulanteen haddana kulamada dambaad aad ku arki doontaa Toronto waad ka dhex arki doontaa siday wax u wadaan iyo sida bulshada maaragtay gacan weyn ay ugu leeyihiin markay timaado dhiirigelinta dhalinyarada iyo isku haynta bulshada waxaan rabaa
inaan u mahad celiyo dhanka warbaahinta oo la'aantood kulamadan oo kale iyo isargan oo kale meel fog aanan gaari lahayn Ibrahim oo Australia noogu yimid ayaa nala jooga oo suxufiyiinta kamid ah sidoo kale waxaa nala jooga Siyaad iyo Ismaaciil oo noogu yimaadeen Minnesota dalka Mareykanka ayaguna aad ay u maasiin sidoo kale waxaa nala jooga Maxamed Ganey oo ah wasiir halka marka Toronto iyo informationkeeda iyo aad ugu baahata laga heli karo oo ah qofka dhanka warbaahinta ururka Today u qaabilsan iyo Soomaalida magaaladan sidoo kale waxaa nala jooga Muxudiin Jaamac oo kamid ah wariyaasha Soomaalida ee magaaladan Toronto mar kale waan u mahad celinayaa waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo xafiiska ururka Today ee magaalada Muqdisho oo aan ognahay wasiirka laftiisa markuu soo baxayay inay soo amba bixiyeen tiim kale ka horeeyay sidoo kalena ay soo amba bixiyeen waxaan u mahad celinayaa Maxamed Saciid Geysay iyo tiimkiisa ee xafiiska magaalada Muqdisho sidoo kale dhammaantiin magacyadiina halaal uma sheegi karo maam ugaasa ayaa nala joogta oo Soomaaliya aad isku taqaanaan dabcan howl adagna wadanka ka haysa mar raba halaalna u sheego munaasabad ka weyn oo mid walba kelimadiisa iyo title-kiisa iyo mansabkiisa ku hadli doona ayaan qaban doonaa mar kale waan idin mahad celinayaa magacaygu waa Xuseen Nuur Xaaji waxaan rabaa microphone inuu say ugu soo laaban balse aan u dhiibo Oday Mursal gudoomiyaha ururka Today isagana markaas wasiirka uu sii dhiibo oo wasiirka markaa uu noo soo xiro marka wala maasantihiin وزير سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله وما أنت نوكن سي انترناشونال بيرسو انترناشونال ايربورت كنت آد أيام فرحسن هذا أورك تولينا هاي ما أنت وزيرك محمد ومدبدنا سوقيني لاست يير وسوقيني ديس يير وسوقيني الحمد لله ما أنت إله سبحانه وتعالى سانت قانك ما أنت ونوع ماضي وآد أو فرحسن وزير كسودو أورك تولي عيارة سومال ويك سنة كان كسودو مقالة تورونو ورنتي ضد فيعان وسلوين فيعان يكونوا ليهين وضيال فيعان هويوين فيعان ضمر فيعان يكونوا ليهين وزير كسودو مقالة تورونو كسودو أورك توداي آدي أنا كام هالعلنينا إن أنا قاعد بشيء إن أنا صوب وقته وكم بعد سنة هاي وأنا شيء كصندوق هدول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى الوزير كان يدير هدول بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك هراء وزارة عافماتك قدوميها حريرك سبورتسك سومالي توداي دمان كوميونيتيga marjaraf talka ka soo qayb gashay bahda saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ruuxantii rabaa inaan si aad iyo aad ugu mahad celiyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee igu soo dhaweysay airportka Toronto maanta waxaan leeyahay waa maasantiin farxad aad ii boodiseen aad maanta halkaas ugu soo baxdeen xilli subax hore ay tahay maalin shaqana ay tahay marka sidaas darteed waxaan rabaa cabaaran joogi doona magaalada Toronto warkeena waa inoo dambeyn doona waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ururka Today oo kaalin weyn ka qaatay inaan soo gaaro magaaladan run ahaantii waqti badan geliyay in halkaan imaado ayagana mahad celin gaar ah u jeedin doona wixii wara waa inoo dambeyn doona laakiin waxaan rabaa inaan mahad celinta soo dhaweynta inaan ku ekaano waan isla joogi doonaa magaalada aad iyo aad u mahadsantiin Somali community Toronto واتهاي وزير كعادة يماسية وحرب عينا الحصة وحنا لجوك صوبا فيتان أو ما ركتي كم إذا دتكو جماعة بالشدة سدوا كله فرحية على سو